waxaa maanta TV-ga ETN ee magaalada Birmingham uu fursad u yeeshay in uu waraysi qaas ah la yeesho madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed. madaxweynaha oo shalay booqasho gaaban ku yimid magaalada Birmingham ayaa sheegay in ujeedadii ay kala haayeen safarkiisa uu ku soo bixiyay dalkan Ingiriiska ay ku guuleysteen. ujeedooyinkaas oo ay ka mid ahaayeen sidii ay taageero uga heli lahaayeen dowladda Ingiriiska, taageeradaas oo isugu jirta xaq dhaqaale, diblomaasiyad iyo kuwa kale intaba. haddaba waraysigaas oo uu qaaday wariyaheena Cabdinaasir Faarax Xarago waxa uu u dhacay sida tan. سؤال دوران ربنا كودي واحد هاي وحكست أهداف لي حتى أهداف تكون تمادين ودن كان إنجليزي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. هدف كأنه مدو حيتها إن دولة إنجليز كان كله هذا الماء. تاجر هذا دولة هي شعب الصومالية يوجد بهايهن إيو كروقات الدحرير كلا بدل دل إيو إن جالية الصومالية إذا كان دل إنجليز كان لكلهم. واحد لكل أنت رئيس الوزراء ودن كان إنجليزك ما حد كود هذا الشيء. waxaan ka wada hadalnay baahida Soomaaliya oo qabto in la taageero iyo dawladda Ingiriiska waxaan uga baahanahay kamid tahay taageero siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed mid dhaqaale mid amni mid maxaan ku yiraahdaa gargaar dhammaan arrimahaasna waxay ballan qaadeen inay sida ugu wanaagsan ay uga shaqeyn doonaan. مريان سافد waxay sidoo dhexmaraysa inaad weerar ku qaadaysaan dadkeedin ka soo horjeeda ciidamada Mareykanka ay ka caawinayaan xagga cirka maxaa ka jira arintaas waxaan u maleynaa wararkaas sida loo dhigayo inaysan ahayn dawladda waajibka saaran wuxuu yahay in ay amniga soo celiso amnigana dadaal fara badan loogu jiraa waxaan rajaynaynaa in ay suurto gasho amniga dalka inuu soo laabto kaliyana ma aha in dagaal lagu raadinayo wada hadal iyo nabad iyo mataqaana dhinac walbo gacan ka geysan kara in amniga la soo celiyo maadaama ay هذا حكمكم مدة هل سنة ما تشران واحدين قبصومي واحد بدنا نوقف صومي وحن نوقف صومي إن عيدا مدي قلب كسيدة دبلور لسا وحن نوقف صومي إن هذه قبل شدة وحلو سوكر رئيس أربورك يدكدها وحلا صعتا إسبتال الذي يسكول لذا قاركود وحا الصعدة ددال فربضان أو لو جرى إن محيهاتو dalka lagu soo celiyo nabadii waxa la socota heshiisyo fara badan qaybaha naga soo horjeeda iyo qolooyinka loo taqaana ayaga laftigoodu wada shaqeyn aan lahayn oo dhici doona heshiiskoodu mar dhow in la galay yaani runtii waxaan aaminsanahay dawladdu wixii laga filayo dhan ma wada qabanin laakiin haddana wax badan qabsoomay waxa kamid ah waxa qabsoomay يعني حريرك ديبادو أو صومالي مدة يكمل قناده ولا سؤال اليوم أنت بعد إنجليز كأركيس الشدة إسبدل كوينه ورجله. واحد وكان كوسو كاري إن وطن إنجليز كان غفر السفارة وبجت على الناس. الرجال وطننا كغمنا إلا فرص سفارة. ميجرا وحرير وهذا اللي كده حياتك أنك أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة وحد يعدون هشيس بشان لبيت وان كذا. السؤال شو قدام بيسا واحد هاي. ما حد كبرنا يسا. جاليد كداونيسا ee qurbaha joogta meel kasta ka daawanaysa jaaliyadu waxaan ku boorinaa waxa ay ka soo tageen oo ka soo carareen dhibaato ahaayeen dhibaatadaas wali waa jirtaa dadkoodii iyo dalkoodii ahaladoodii wali waa dhibaataysan yihiin dalkan waxa hubaala inay khibrad iyo aqoon ka kororsadeen in loo baahan yahay khibradoodii aqoontooda inay ku soo celiyaan dalka Soomaaliya xalkeedana wuxuu ku jiraa in la xoojiyo dawladnimada waxaan aaminsanahay in dadka Soomaaliyeed meel joogaan ay u bisil yihiin qolba joogtana wax badan ay ku soo kordhi karto تيجي قدام مثلاً كلها كفتمه واختيار الفراغ هذا عطاهي تلفزيون ما دعوتها ETN كم دعوتها ETN كم مرة دعوتها كاسنا وعها مدحبنا الدولة الفدرال كمل قارب الصومالي مدن الشيخ شريف أحمد وسوق قاري عرق إنجليز كما قال ديسان برمكام يعني وعبد الناصر فارح قال تلفزيون كإيتان برمكام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضع يا هو